kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibada ku xiran kulmis media ku soo dhawaada markale iyo muuqaal cusub. Muuqaalkan waxaan uga hadlaynaa qamar suugaan oo ka shalayay kala tagan xaaskiisii hore ee Ugbad Aragsan. Fanaanka caanka ee qamar suugaan ayaa bartiisa Instagram ka soo dhigay hadal sarbeeb ah kuna saabsan in uu aad uga xun yahay in ay kala tagaan fanaanada Ugbad Aragsan. Inteenan akhrin qoraalka alfanaan qamar suugaan marka hore waxaan ku xasuusinayaa in aad nagu soo biirto oo kamid noqoto saaxiibada qiimaha leh ee ku xiran kulmis media. intii san rasaasta ila dhicin hadalkii ugu dambeeyay ee aan afkeeda ka muuqlo wuxuu ahaa haddii ay dadka ka weydiiyaan waxaad u sheegtaa waxay ahayd daruur roobaad oo i dul timid i roobeysay duug iyo cuduun ii soo saartay hadalka habadin waxaad ku soo koobtaa nimci ahayd kuma shukrin kadib ciqaab bay isu bedeshay kadibna 15 xabadood ayay ugu hubsatay markii aan baxay baan isweydiiyay waa ay cod ay ula jeeday haddii ay iga weydiiyaan daawaday arintan waxay u muuqataa in alfanaan qamar suugaan uu aad uga shalayay in uu way jecelkiisa taas waxa cadeen kugu filan hadalka ka soo yeeray qamar suugaan dadka qaar waxay isweydiinayaan maxaa ku kalifay in uu qamar suugaan hadalkan bartiisa ku soo qoro dhinaca kale fanaanada Ugbad Aragsan waxa ay nolol la wadaagi rabtaa muusigiistaha caanka ah ee lagu magacaabo Ilyas sidoo kale dadka qaar ayaa sheegay in qamar suugaan gabadha uu hadda qabo uusan ku raacin jacayl balse uu ku raacay baasaboorka ee wadato kaas oo aan Gurbiyan ah Soomaaliya hore waxay u tiri xalashiis xumeey xakaar ayaa u dambeeyo kaasanu bogaaniga waa kuwa badangala balweenta yaan laga boojeenin kaasanu bogaaniga waa kuwa badangala balweenta yaan laga boojeenin